السلام عليكم داودyaal meel walba joogtaan oo mar kale barnaamijkeeni Bidar Caawiye TV oo anigoo Leon Bidar Caawiye waxaan ku soo qaadan doonaa barnaamijka walaal ila soo wadaagay guul qurux badan ama natiijo qurux badan oo ka gaaray New Hair Lotion iyo walaal kale oo ila soo wadaagay isticmaalka New Hair Lotion inay dib ku noqotay walaalka ila soo wadaagay natiijada quruxda badan before saan ayuu ahaa talow after maxaa is leedahay la soco barnaamijku dhameystiran adaa arki doono adaa yaab u dhiman doono insha Allah la soco barnaamijka dhameystiran salaamu calaykum daawadayaal meel walba joogtaan oo mar kale barnaamijkeeni Bidar Caawiye TV waani waliyo Bidar Caawiye aday tahay markii kugu horeysa soo booqato channelka Bidar Caawiye TV waxaan si xushmad leh kaaga codsanayaa subscribe inay siiso like share comment haddii tahay markii kugu horeysa soo booqato channelka aan ku leenahay barta YouTube-ka Bidar Caawiye TV fadlan waxaan si xushmad leh kaaga codsanayaa subscribe-ka inay iga baqiilin like share comment intana kama marno insha Allah inta barnaamijka u gudagelin waxaan rajeynayaa maanta inaan ku tuso ninkii Leon Bidar Caawiye ahaa oo dib ugu soo noqday muddo 19 casho ah kadib darmaroolka 19 casho kadib 20 casho bari ay noqon lahayd darmaroolka isbuucii mar ayaan u wareegi doonaa insha Allah darmaroolkii ninkii Leon Bidar Caawiye ahaa wuu ku soo noqday oo ujeedaa isbuucii hal mar ayaan ka dhiganayaa fadlan adna ila qaado waxaan ka dareemay natiijo fiican ayaan ka dareemay waa inaan ka nasataa darmaroolka in muddo isticmaalaysay haddii tahay wiil dhalinyaro ama gabadh dhalinyaro ah isticmaashid saliidaha sida kiimikada leh ama hair foodka oo kale ama jeelka oo kale fadlan waxaan kaa codsanayaa in aad iska daysid mustaqbalka madoobeysada kalarka jeelka mustaqbalka dheer waxay ku dhimayaan waxa arki doontaa timo ku daata oo yar ama salxayo ama bidaar inay ku gasho insha Allah mar walbana waan kaaga digaa waan kaaga waaniyaa waxaan jeclahay waanada inaad qaadato walaalaha kale isticmaalo u sheer garay in wax dhibaato badan u keeni doonto isticmaalka madoobeysada hadda uu quruxda u maleeyo madoobeysada jilcisada jeelka kalarka ogow mustaqbalka fog waxa ka dhaxli doontaa dhibaato madaxaada ku dhacdo bidaaraday noqon lahayd timo ku daato timo ku jajabo insha Allah uga dig walaalaha kale u sheer garay barnaamijka gaarsii waxaan rabaa barnaamijka inta u gudagelin walaalka mid barbaarta gaashaman ayaa wuxuu ila soo wadaagay saliida New Hair Lotion dib ayaan ku qabaa saliida New Hair Lotion isticmaalkeeda dib weyn ayaan ku qabaa dibkaas oo ah mar alla markaan saliida isticmaalo laho hindhasadii aan bilaabo waaga ay baryaayo mar alla markaas loo saliida isticmaal hindhasadii aan bilaabo waaga ay baryaayo marka walaalkaas wuxuu yiri hindhisada aan bilaabo hindhiso waa taqaanaa waxa laga yaabaa dabcan inuu walaalkaas energy ku yahay ama samboor uu qabo hindhisada aan bilaabo waaga ay baryaayo yiri mar alla markaas loo isticmaal saliida soo qabso oo madaxa ku shubo hindhisadii aan bilaabo waaga ay baryaayo hatta waxa isku dayo walaalkaas inaan soo qaato go weyn aan wajiga intaan ku xirto kadibna aan isku buufiyo saliida laakiin hindhiso iyo waxa ka bixi waayay indhaho ay guduuto marka walaalkaas waxaan leenahay waxa lagu diidan yahay qofka inuu si isticmaalo ma ahanba waxa lagu diidan yahay waaye waxa laga yaabaa inaa energy ku tahay hadda ka horna ku sheegay walaalkaas caadowgii soo wacay marka waxaan ku dhahay energy maadaama aad ku tahay iska dhaafba maadaama energy aad ku noqotay oo aad ka qaadaysa energy aad waxa raadinaysa waxay tahay timo ku soo baxo inaad raadinaysay marka haddii wixii ay dib ku keenayaan aad ujeedin inay dib ku keenayaan waxa fiican inuu qofka iska dhaafo wixii dib ku keenayo qofka bini'aadanka ah waxaan qofku wuxuu ka raadinayaa in bidaartan uu iska ka baxdo oo timo caadi uu yeesho insha Allah sida Leon Bidar Caawiye kale laakiin hadda ku xanuunsatay fadlan waxaan kaa codsanayaa walaalka taa barnaamij hore u baxay walaalka taa uu la soo wadaagay oo afar ama saliid soo gatay adna hadda la soo wadaagtay insha Allah waxaan rajeynayaa inaa iska dhaaftaan kugula talin lahaa aniga raadisid laka kale inaa raadisid ama wax kale raadisid oo wax anfacayo inaa raadisid ayaa isku day insha Allah walaalkaas waxaan leenahay saliida maadaama ay ka qaadayso samboor iyo reeraxyo iyo qufac ka qaadayso oo samboorka hindhisadii aad bilowdo waaga uu ku baryaayo fadlan haba isticmaalin waxaa samaysaa waxyaalo kale raadi oo ku anfacayo waa la helayaa waxyaalo kale ku anfacayo sida fitamiinada kale kiniiniga fitamiinka kale oo hadda amar walba soo kala raadso kiniiniga fitamiinka iyo kiniiniye kala jiro oo kaalmaanti ah
oo loogu talagalay timaha ama madaxa loogu talagalay insha allah waxaan rajeynaa walaalkaas inuu qaadan doono taladeeda insha allah waxaan rabaa inaan kula wadaago walaal kale oo ka gaaray natiijo saliidda mar walba waxaan ka sheekeyn jirnay saliidda waxtarkeeda waxaa waaye fiicnaanteeda xumaanteedana waa in lasoo gudbiyaa haddii qofku uu ku arko wax xun hayla soo gudbiyo waxaan la wadaagayaa bulshada inteeda kale insha allah walaal ka mid a barbaarta gaashaaman ayaa guul cajiib ila soo wadaagay walaalkaas wuxuu isticmaalay waa guul hordhaca dhigi karaa wuxuu isticmaalay 2 xabo saliid ayuu isticmaalay 2 xabo saliid ayuu isticmaalay tii saddexaad ayuu hadda bilaabi rabaa 2 xabo saliid uu isticmaalay guul uu ka gaaray guusha uu ka gaaray quruxdeeda before walaalkan saan ayuu ahaa cajiib before walaalkan saan ayuu ahaa wax walbana waxaa waaye aday kugu xiran tahay iyo dadaalkaaga haddii fadlan aa ku xanuunsan aa ku aragtay sanboor oo kale sanka ku cuncuno iyo saliidda waa iska dhaafi kartaa laannahu dad waxaa jira ee dhib u tahay ama sanboor ku qabo ama xasaasiyad ku kicisaa jirto marka walaalkan wuxuu isticmaalay 2 xabo saliid tii saddexaad ayuu bilaabi rabaa waa guul hordhaca barbaarta gaashaaman la wadaagu yiri guwaban ha noqoto insha allah waxaa leenahay walaalkan guusha hordhaca noo soo dirtay before saa tahay waa aragnay bal aan la wadaago before saa tahay waa aragnay bal aan la wadaago after saa tahay before waa soo aragti suu ahaa after walaalkan saan ayuu yahay after saan ayuu yahay maasha allah mar walbana waxaan kaala talinayaa walaalkaas sidaada ku socota si fiican waaye 2 xabo saliid insha allah qofka bini aadankana waxay ku xiran tahay asaga karaankiisa iyo intuu waqti u haayo ama intuu waqti madaxiisa geliyo mar walbana uma baahnid inaad shaamba ku qubaysato mar walbana shaamba dad badan ay soo weydiiyo shaamba ma ku qubaysanaa mar walba may uma baahnid saliidda haddaa haddoo kale shaamba ku soo qubaysato minta maalinta amarsato kale haddaa shaamba ku qubaysato marka habeenkii la gaaro biyo cada kaga dhaqaysaa tan habeenkii amarsato markii waaga uu bari biyo cada kaga dhaqaysaa shaambada qofka inuu mar walba isticmaalo ma aha shaambada qofka horaa ugu sheegaanay haddii qofka timo badan oo lahayn qofka hadduu timo badan lahayn timeegu kale leeyahay isbuucii 2 jeer ka badan isbuucii waa 7 days to the bari waa isbuucii 2 maalin loo marsanaya inta kale biyo caado ku dhaqanaya laakiin muhiim waxa ah saliidda aan amarsado tan kale marka caawa marsanayo waa inaan ka dhaqaa tan caawa amarsado marka biri shaqada inta aadin oo ilaahay idmo tan kale oo subax amarsanayo waa inaan ka dhaqaa kadaqitaanka dadka wuxuu fahmeen in shaamba looga dhaqaayo is nothing shaamba loogama dhaqaayo shaambada waxa u baahan tahay haddaad timo badan leedahay 3 maalin mar ku dhaqo haddaad timo badan leedahay waay 3 maalin mar ku dhaqo sideedaba shaambo qofku wuxuu isticmaalaa markay timaha wasaqoowaan markay timaha wasaq noqdaan ayuu qofka shaamba isticmaalaa taa dadka inay fahmaan fiican درمرولka haduu qofku in muddo isticmaalayo kale in muddo waxa ka wada 30 bari wixii ka badan ha ka nasto sida aan uga nasto kale bowsa ka qaato ilaa 3 isbuuc ha ka nasto ilaa 3 isbuuc درمرولka ha ka nasto kadib dib ha u bilaabo marka maalin qofku u baahan yahay inuu isticmaalo dib uu soo noqdo درمرولka maalin uu u baahan isbuuci hal mar ayaa isticmaalaysa درمرولka isbuuci hal mar ayaa isticmaalaysa waa hadaa doonaysid timahaagi bariisamaadka quruxdooda sidii liibaan bidra oo camal inaad soo ceshato ogsoono barnaamijka wax kale lagama hadalno waxaan kaga hadalnaa kobci timahaaga intaad dhalinyarada tahayna ka digtoono waxyaalaha dhibka kuu keenayo mar walba kula wadaaga shaambooyinka kiimikada la iska ilaali shaambooyinka saliidaha kiimikada la iska ilaali kareemyada kiimikada la iska ilaali barnaamijka mar walba waxaan kusoo qaataa horumarka ay gaareen dhalinyarada meel walba ay joogaan haddii aad u baahan tahay wixii caawin ay iga baahan tahayna waxay igala soo xiriiri kartaa lambarka shaashada ku qoran mar walba waa ku arkaysaa haddaa ku arki weyso casharada qaarkood waxaa laga yaabaa inaan ka iloobo bini aadan ayaa ahay whatsappka igala soo xiriiraysaa wixii fariin whatsappka igu reeb anaan kuu soo jawaabayo waxaan ku leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu